midabka uu qofku doorto oo lagu garanayo dabeecadihiisa wax ka mid ah khubaro ku xeel dheer cilmi nafsiga ayaa soo saaray daraasaad ku waajahan midabada qofku uu doorto oo lagu garanayo dabeecadaha qofka ee ka qarsoon wax ka mid ah ama qofkuba uu naftiisa wax badan kaga ogaan karo. haddaba midab kasta oo aan sheegno waxaan tilmaami doonaa waxyaabaha ay khubaradu ku sifeeyeen. aynu ka bilowna midabka basaliga ee waa qof u samaysan qalbigiisuna u dabran yahay jacaylka oo uu dhiiggiisa raacay. casaanka waa qof jecel inuu soo jiito indhaha dadka mar walbana doonaya in loo arko qof muhiima. bunniga ama kafeega waa qof aanu khiyaaligu ku badnayn oo jecel shaqadiisa iyo guud ahaanba noloshiisa. liimiga ama oranjiga waa qof degan oo maamuuska ku fiican isla markaasna waa qof jecel nidaamka iyo isku dubaridka. midabka dahabiga waa qof awood badan oo jecel wax kasta oo uu dantiisa u arko waxaanu daba ordaa maalka iyo caanimada iyo mas'uuliyadda. cadaanka waa qof faan badan mar walbana jecel inuu dadka ka dhex socnaado kana sareeyo isuna arkay inuu qeyrkii ka wanaagsan yahay kana duwan yahay. jaandiga ama silfarka waa qof kalgacal badan wax kastoo kalena ka horeysiya arrimaha jacaylka. madowga waa qof kalsooni badan naftiisa ku qaba laakiin marar badan taasi ay hodo oo isu arkay inuu wax kasta isagu garanayo. midabka buluuga waxaa lagu sifeeyay waa qof hogaamin jecel inta badanna ka fakera sidii wax u hogaamin lahaa iyo dejinta qorshayaasha mustaqbalka. midabka huruudda isagana waxaa lagu tilmaamay waa qof dood badan qadiyad kastana muran geliya isla markaasna aan jeclayn inuu murankaasi jaro ama soo gabagabeeyo. akhtar ama cagaar midabkani waxaa lagu sifeeyay waa qof naxariis badan xiriir jecel inta badan ka fikira arrimaha aadaminimada la xiriira jecelna inuu gacan ka geysto baahiyo kasta oo aadame. midabka ugu dambeeya oo ah soosani ayaa waxaa lagu tilmaamay waa qof caqli badan garaad dheer dulqaad badan oo wax kasta dhageysan kara kalsoonina isku qaba oo arrin kasta ka hadli kara. daawadayaal intaasi waxaa ku eg daraasadan midabada sheegaysa in laga dhex garanayo qayb ka mid ah dabeecadaha aadamaha. qormadani waxaa soo turjumay Kamaal Axmed Cali waxaana la socodsiinaya anigoo taajir warbaahinta Geeska Afrika oo idin leh nabad.